su-aasha ugu horeysa ee caawa aynu ku bilaabaynaa waxay tahay saa'ilkani waa qof dumara waxay tidhi sheekh ma akhriyi karaa qur'aanka anigoon daahir ahayn waxaanay ka wadaa qur'aanka ma akhriyi karaa musxafka moobaylada ku jira ee moobaylada lagu shubtay applicationka ah ma isticmaali karaa oo ma ka akhriyi karaa qur'aankii haddaanan daahir ahayn alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا qofku markaanu daahirka ahayn ama ha noqdo qof aan weyse qabin ama ha noqdo qof ay meydhasha ku waajibtay oo weli aan maydhan sida qofkii junubka ahaa ama gabadhii dhiigga xaydku uu ku dhacay weli aan ka maydhan kitaabka qur-aanka ma taaban karaan qof dahaaro dhammaystiran qaba ayuunbaa kitaabka qur-aankaa taaban kara waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka taaban maayo bimacnaa yaanu taaban qof daahira mooyaane qof kale taas waa xagga taabashada waxaana arrinta noocaasi ah ay ku saabsan tahay meel kasta oo qur-aanka lagu qoro hadduu warqad ku qoran yahay iyo haddii qur-aanku uu ku qoran yahay loox iyo haddii uu moobil ku qoran yahay oo dusha uu soo yaallo uu muuqdo waa isku mid lama taaban karo qur-aanka haddaan la qabin dahaaro dhammaystiran xataa qofku haddaanu weyse qabin ma taaban karo arrinta ku saabsan akhrinta qur-aanka qofku waa akhrin karaa isagoo aan daahir ahayn gabadha iyadoo xayd leh dusha waa ka akhrin kartaa ama iyadoo dusha meel dheer ka eegeysa musxafka oo aan taaban qofkii junubkaa qur-aanka waa akhrin karaa qofkii aan weyse qabinina qur-aanka waa akhrin karaa alimaam albukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u daliishaday xadiidka caaisha radia allahu canha ay tidhi kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yadkuru اllaha calaa kuli axyaani rasuulku wuxuu ahaa xaaladihiisa oo dhan mid ilaahay subxaana wa tacaala xusa ayuu rasuulku ahaa ilaahay dikrigiisana waxaa u sareeya una fadli badan akhrinta qur-aanka axaadiida markaa qofka junubka ama gabadha xayd kale qur-aanka akhrintiisa u diideysaa waa axaadiid daciifa weeye sida xadiidka cabdillaahi bni cumar iyo xadiidka cali bin abi aalib laga wariyo saxaabada rasuulkana qaarkood waxaa ka sugnaatay iyaga oo junuba inay akhrin jireen qur-aanka waxaa ka mid ah cabdullaahi bni cabaas radia allahu canh kaana yaqra'u wirdahu min alqur'aani wa huwa junub cabdullaahi bni cabaas qur-aan maalmeedkiisa qur-aanka ugu talagalay maalintii inuu akhristo waa akhrin jiray isagoo janaabo leh marka waxaynu leenahay qur-aankii qofku waa akhrin karaa xaalad walba xaalad akhrintiisu ay mamnuuc ka tahay ma jirto laakiin taabashada meesha uu qur-aanku ku qoran yahay qur-aan khali yahay ama hadal kale uu kula qoran yahay laakiin qur-aanku uu ka badan yahay taasi ayaa adiladu ay diiday wallahu aclam saa'ilkanina waxa uu